رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إيانا وإياكم من الفتن وضلالات فقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا ولو كان عني آية أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله إلهي سبحانه وتعالى حقه نقصه عرب كينا إلهي سبحانه وتعالى arrimaha aan isku sheegayno diinta islaamkaana fadligeeda iyo karaamadeeda iyo cisigeeda iyo sharafteeda ilaahayna siiyo intaynu garanaynana ilaahay nagu anfaco intaynaan garanayna ilaahay hayna baro inta aynu filayna cilmiga toosan ilaahay subxaanahu wa tacaala haynagu sugo insha allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa keena akhrinaya keena dhegeysanaya in ilaahay xaqa ku sugo intaa ka bacdi waxaynu kusoo jirnay mafaasidaat waxaynu kusoo jirnay soom ama saa'im waxyaalaha fasahaadiya ama ajarka ka yareeya ama dhibka markaa u keena bisha Ramadaan aad ku jirto fadligeeda maalintii intaad sooman tahay waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha markaa jabin kara xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo qaadano man daracahu al-inqay فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قف هدو قبته oo aanu isagu iska keenin laakiin uu qabto ama labaha ku qabto ama awlka la xanuunka la ku qabtee haduu mata qabto uu matago soonkiisaasi ka fasahaadi maayo waa iska wadanaya waanu soomanaanaya hadiise uu isagu dhibka keeno ama farhays galiya ama si kala isku matajiyo si camdiya oo camdan ahaan haduu isagu isku matajiyo falyaqdi calayh hasoo gudo markaa soonkaas oo soonkaa waa laga rabaa maalinkaas waxaa kaloo ka mid ah iyada laftigeeda oo mafsidaadka ka mid ah waxa la yidhahdaa waa inzaalul manii biikhtiyaar waa qofka oo shahwadda iskaga keena ikhtiyaar iskaga keena ama rag ha noqdo ama dumar ha noqde okay maxaa ku iman kartaa taa laftigeedu waxa weeyaan waa qofkii reerkiisii la kulma oo istimtaac wax la yiraahdo ku sameeya walow yaanu galmoonbe shayga ragga ka yimaadaana sidiisu waa saddex waa wax la yiraahdo mani iyo wax la yiraahdo madi iyo wax la yiraahdo wadi manidu waa ta markaa waa daahir weeyaanoo waanta insaanka laga abuuro bilowdmiga laga abuuro waana tawaajibisa in laga qubaysto waana tawaajibisa in uu fasahaado soonkii oo adigana uu fuulo markaa waajibaadkii hore aan kusoo sheegnay ee tahaarada ahaa taas wax markaa ay tahay marka waxay ku kulmi kartaa qof walba markaa de ilaahay dareen ummadda kala siiyey qaar baa dhukashada u dhukanaya bitaqbiili lixurmati dhukashada u dhukanaya qaar bay kaga timaadaa ama taataabasho uu taataabto ama qosol ay wada qosolayaan iyo ma garanaysaa ay kaftan ay faraka ciyaarayaan wanaxwa daalik iyo waxyaalaha la midka ah waxaasoo dhanba hadday kaga imanayso uu is og yahay oo waxa markaa uu ogaan u sameeyo wala kacna u sameeyo manidiina ay ka timaado
waxay noqonaysaa markaas inuu soonkaasina ka jabay, fidyadiina waa lagu yeelan doonaa. ama qoor buu xorayn doonaa, ama 2 bilood buu soomi doonaa, ama 60 miskiin buu quudin doonaa. manida iyo madida iyo wadidu maxay u kala duwan yihiin? manidu waanu soo sheegnay waa daahir, laakiin madida iyo wadidu daahir maaha, waa nijaaso oo waa sida kaadida oo kale. iyadu waxay ka adag tahay koriyata salaadun bay jebisaa, siday kaadidu salaadii kaaga jebiso umay tana salaad kaaga jebin, labadana salaada kaaga jebinayaan, laakiin soonkaana kaama jebinayaan. marka labaad qubaysna kugu waajibin maayaan, laakiin manidu soonkaaga way jebinaysaa, qubays bay kugu waajibinaysaa, fidyadaana way kugu waajibinaysaa marba hadday tahay shahr Ramadaan haddaad ku jirto ay maalintiina aad hawshaa samayso. في قول جمهور العلماء في أهل العلم وحي لين أي أرن كاله مركه يقول درشني حديث رسول عليه الصلاة والسلام وأها إنه مالت يوم القيامة ودودي دون حديث كله ورن دونه يدعى طعامه وشرابه وشهواته من أجل مركه لأن محايا لي وحكود دودي وحكمي وحنتدي كتجي وشراب كتجي شهوات هنا وكتجي صوم كدرتيس، laakiin hadduu ku dhaco maalintii dee shahawaadka mutawina uu sameeyey saa la ajrigeed waxa weeyaan qof wuxuu shahawaad ka tegay ma lehe waajibkeedii iyo xukunkii uu lahaa baa lagu qaadayaa markaa idan. وأما الإنزال باختيار أو تفكير مجرد فلا يفطر. وأما الإنزال أما هدي وقصو دقو بالاحتلام isagoo riyo ama magaranaysaa hurdo uu ku jiro ixtilaam hadday noqoto, ninkii waa hurdaa wuxuu ku riyooday ama uu niyadiisa gashtay inuu reerkiisii la joogo oo sidaa markaa ay ku soo dhaafaan shahwadii iyo manidii ay ku soo dhaafto, soomkiisiina ka fasahaadi maayo, soomkiisii waa wadanaya, kana jabi maayo, fidyana lagu yeelan maayo. aw tafkiir mujarrad ama isagoo ku fikiraya arrinkaas ay waxaan soo dhaafeen, ama taabashana isagoon jirkiisa taabanin, ama qalbiga kaliya intuu ka fikiray ay hawshaas saa ku soo dhaaftay, falaa yafdiru bihi ma afuraya bay culimmadu markaa leeyihiin. hawshiisana waa waxa weeyaan soonkiisana waa sii wadanaya, waana ka qubaysanaya insha Allah biidni Illaahi tacaala. waxa kaloo fasahaadiya waxa ka mid ah gabadhu laftigeedu waa labaday ragga dheer tahay ama 3 arrimood ay ragga dheer tahay baa jira. waxaa jira damul hayd, waa maxay? waa caadada, wan nifaas iyo dhiiga dhalmada. waxaa kaloo jira mustaxaado wax la yiraahdo ayaa jira laftigeeda. liqowli sallallahu alayhi wasallam iyagoo daliishanaya markaa hadalkii rasuulka alayhi salaatu wasalaam ee dheeraa ee ahaa markuu bilowgiisu ahaa naaqisaatu caqli wadiin, ay dumarkii weydiinay raadiya rasuulullah maxaanu kaga naaqusannahay ragga diin ahaan iyo caqli ahaan. rasuulku markaa wuxuu ku yiri alayhi salaatu wasalaam fii mar'ati haddii gabadhu ay markaa alaysa idaa xaadat haddii ay xayd uu ka yimaado lam tusalli walam tasum, markaas soomina mayso salaadina mayso. markaas saas la ajrigeed bay markaa ragga ay caqli ahaan iyo diin ahaanba uga dambeeyaan. saa la ajrigeed ayaa xadiiska u soo daliishadeen culimmada. marka waxaa daba haddii gabadhii ay tahay gabadh maalinta subaxii oo dhan soo soomanayd, 2 daqiiqo ama 1 daqiiqo adinku ka dhiman yahay aan la adimin, haddii uu ka jabo oo markaa uu yimaado xaydkii ama caadadii ay ka timaado, gabadhii waa iska qubaysanaysaa, soomkaasna waa iska afxirnaanaysaa. intaa markay hawshaa gudato maalinkaana waa soo qalayn doontaa, dembi iyo dunuubna kuma laha. waa wuxuu ilaahay u keenay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu hawl fududeeyey. hase ahaatee maalinkaana way soo qalaynaysaa. nifaaskiina waa saasi leego hadday maanta o dhan ay soomanayd, laakiin gelinkii dambaba hadday fooshi qabato markaa nabarkuy uu ku dhufto oo nifaaskii yimaado gabadhii dhasho oo markaa dhiiggii markuu saa u soo dhaafaba waxay noqonaysaa dhiiggii dhalmada markaas hadday heshayba inay iska afuraysa iyaduna.
saa la ajrigeed waxa markaa aynu ka faa'iidaysanaynaayoo kale inaanay markaa gabadhii soomaynin intay xaydka qabto ama nifaaska ay qabto. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay dhammaanteenba xaqa inagu wada sugo, toobaddana ilaahay nagu dilo, dembigeena iyo dembiga waalidkeenna ilaahay dhaafo. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wuxuu ilaahay ina fahansiiye cilmi ama diin ah ilaahay inoo barakeeyo, kuwii ku dhaqma ku camal falana ilaahay naga dhigo, waxaynaan aqoon u lahaynan cilmi u lahayna ilaahay cilmigeeda ina baro, ilaahayna inoo siyaadiyo cilmigana ilaahay uu inooga dhigo ka aakhira inoo dooda ee ka inagu dooda ee maaragtay naga soo horjeesta ilaahay inaanu ka dhigin ayaan ka rajaynaynaa insha allah. in maaragtay waxaan ilaa ka nool arrinkaas ilaahay uga wada codsanaynaa dhammaanteen ikhlaas iyo mutaabacaan ilaahay inooga dhigo. wax kastoon hagaajiyeyna naftayda, waxa kastoon hagaajiyeyna ilaahay iyo rasuulkiisa ka sugnaadeen, wax kastoon haleeyeyna naftayda iyo shaydaan bay ka sugnaadeen, walciyaadu billaah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.